madaxweynaha maamul goboleedka Ceelbuur State mudane Cabdullaahi Maalin Gaafo Asbaro oo maanta dalka dib ugu soo laabtay kadib safar uu ku maqnaa ayaa ka hadlay guulo uu sheegay in ciidamada dawladda ku meel gaarka ee Soomaaliya ay ka gaareen maalmihii ugu dambeeyay dagaallo ay la galeen xarakada mujaahidiinta ee Al-Shabaab. Cabdullaahi Asbaro ayaa waxa uu sheegay kadib markii uu saxaafadda kula hadlay garoonka diyaaradaha Aadan Cadde International Airport ee magaalada Muqdisho oo maanta ka soo degay in guulahaasi ciidamada dawladda ay gaareen ay horudhac u yihiin guulo uu sheegay in laga gaari doono dhammaan dalka Soomaaliya meelaha ay kaga sugan yihiin xarakada Al-Shabaab. arrimahaasi asigoo ka hadlayna waxa uu yiri كده كمان وسؤال خاصة كمان عن نقطة يعني تنسيق اليوم على وجود هذا يقصد بنا يا إن على نقطة كأو وهدانية وهنا من الشخص الأحمر كمان وكان لنا وهم رأينا المطلع أنا حسنا وعنا عمل dhanka kale madaxweynaha maamul goboleedka Ceelbuur State mudane Cabdullaahi Asbaro ayaa waxa uu ka hadlay maamul goboleedyada ka jira gobolada dhexe ee Soomaaliya oo uu sheegay in ay mar dhow midoobi doonaan isla markaana si wada jir ay ku wajihi doonaan xarakada Al-Shabaab oo inta badan gobolada dhexe iyo kuwa koonfureed ee Soomaaliya gacanta ku haya asigoo sheegay in arki doono iyadoo Ceelbuur State iyo maamul goboleedyada la midka ah ay ka howlgali doonaan deegaanada ay maamul goboleedyadaasi u dhisan yihiin. Cabdi Kaamil Yuusuf, Somalisa TV, magaalada Muqdisho.